الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 7 Juun 2025 waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno xog ku saabsan dhimashada mid ka mid ah horjoogayaashii ugu dhagarta badnaa ee Soomaaliya khawaarijteeda ka tirsanaa ee kooxaha Al-Shabaab dilkiisa oo shalay dhaawacan shalay ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamku ay dhaawac u geysteen meel horjoogayaal kale lagu dilay dhaawaciisina waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u xaqiijino in maantay uu ku dhintay kowdii duhurnimo duleedka degmada Ceelbuur horjoogaha magaciisa la yiraahdo Nuur Cabdi Rooble kuna magac dheeraa deegaamadaasna looga yaqaano Nuunuule ninkaasi waxa uu weerarada iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay tan iyo sanadkii 2009 waxa uu weeraray Gurceel ahlu sunnadii markay halka ku sugnayd iyo Dhuusamareeb waxa uu weeraradii ka dambeeyay qorshaha iyo hogaaminta weeraradii ciidankeena iyo dadka shacabka Soomaaliyeed loo geystay degmada Galcad Galgaduud Cawsweyne Galgaduud ceel la helay Galgaduud caad Mudug Xarar Dheere gobolka Mudug ceel dheer iyo aadan yabaal u dambeysay isagoo lagu dilay isagoo raba inuu qorsheeyo una yimid gurmad habeen hore u yimid deegaamada ceel hareeri ee gobolka Hiiraan oo dagaalo culus ay kooxaha khawaarijtu kula jiraan ciidanka dawladda iyo dadka deegaanku macawislaydu ayaa weerar qorsheysan xogtiisa la helay dawladda Soomaaliya isaga iyo horjoogayaal uu ka mid yahay madaxii gaadiidka Hanad Xasan Cali Shuuriye Abu Anas loo yaqaano iyo isaga iyo horjooga cadow la yiraahdo Macallin Cumar horjoogo kale la yiraahdo horjoogayaashaas oo isagu madax u ahaa ayaa halkaasi habeen shalay lagu dilay isagana dhaawacan baa lagu qaaday degmada Ceelbuur Ilaahay faldigiis waxa ah in uu maantay ku geeriyooday halkaas ninkaasi wuxuu ahaa hadda xilka uu hayay ka sokow xilalkii tirada badnaa oo soo qabtay hadda xilka uu hayay wuxuu ahaa hogaamiyaha khawaarijta afarta gobol oo hadda howlgalada ugu culus ay ka socdaan gobolka Mudug Galgaduud Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dibkiisi halkaas ayuu ummadda Soomaaliyeed uga haray waxayna noqon doontaa cawaaqibta hogaamiye kasta oo kooxaha khawaarijta ka tirsan cawaaqibtiisu halkaas ay noqon doontaa waxaanu ugu baaqaynaa inay isi soo dhiibaan inta sida Nuunuule aysan si rafaad ah asagoo jirkiisii la kala sido shalay ilaa xalay ay la tacaalayeen maantana ku qurbaxay degmada Ceelbuur wasayaclamu alladina zalamuu ay munqalabin yanqalibuun guul baan u rajaynaynaa ciidamadeena guul baan u rajaynaynaa dadka deegaamada ee dirirta kula jira xaqa ah kooxaha khawaarijta guul baan u rajaynaynaa saaxiibada caalamka ee garabka naga siinaya waxaana runtii soo gabagaboobaya maalmihii khawaarijta haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baanan u bogaadinaynaa ciid mubaarak baan leenahay ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ku jira ee muraabitiinta ku ah ee ku sugan ee halkaas cadowga ku dhowraya ama weerarada cadowga halkaasi ka qaadaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin guuleysta sidaas ayaan looga fakan karin cidna aysan uga fakan karin cadaaladda meel kastoo la tagana cadaaladda ayaa la soo hortaagayaa ciddii ummaddan dhagarteeda iyo dhibaatadeeda ka shaqeysa mahadsanidin